neefa iga soo fuuqday soo dhawaaw isbuucan isbuuci ka horreey waa ogid maano Fulham 90 plus ka fakada maantana Everton ay hal iyo eber gurigeega ku qarijiyay hora kugu sheegay muuqaal ka horreey aan kugu sheegay waxaan ku dhahay inta kulan noo dhiman waxa u dheelaynaa sidii final ka kale kulanka rabayna wax yar ka iraado saddex dhibcood oo muhiim ah oo must win game ahead maanta waa qaatay iyo galaw ina wax yar ka iraado qaladaadkii yaa khatar ahaa yaa ku soo baxay macallinkii maanta maqnaa sababta u maqnaa waxaas oo dhan waa ka daba gaarsiinaa balse inta gudaha u galay muuqaalkaas waxaan ka codsanaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo asxaabta qaaliga ee halkan ku xiran ka mid noqo muuqaalkan laag badan sii soo u gaaro saaxiibo badan sheertaadana way ku furantahay gaarsii Chelsea fan oo dhan muuqaalkan wuxuu gaar u yahay kooxda Chelsea ina 1 billion la geliyo Champions League na u soo bixiyo xil ciyaareedkan macquul ma ahan xil ciyaareedkan waxa naga go'an ina u soo baxno Champions League kadibna haddii joogo macallinkan ama uu sii joogin waa la arki doonaa balse iyo ogolaa inaa wax yar ka iraado kulanka soo dhawaada waxaan ka soo bilaabaynaa gadaal Nicky Lavia ahaa maanta waa soo laabtay first half-kii kooxda teembada u dejiyay qadka dhexe markuu ciyaarayo miisaanka culus waay Chelsea qadka dhexe lagama soo weerari karo goalkeeper maanta Sanchez wuxuu save garayna cajiib maanta sameeyay wuxuu save garay ilaa 4 iyo 5 balse aniga ima qaldaayo xilli ciyaareed dhamaanayo inuu saa isku soo qatartaas ka dhigo wax badan save garay ima khiyaanayaan waxaa la yiri doofaarka siisa ma daahiro Sanchez wuxuu rabaa siisa markuu sii dhamaanayo inuu qatar iska dhigo oo xilli ciyaareedka dambe noo ciyaaro ima khiyaantid balse kulanka maanta wuxuu ahaa top oo wax badan ayuu save garay Nicholas Jackson oo ugu dambeysay gool u dhaliyay leeyahay maanta 2024 wala wajabna walaah istaraakana u baahanna marka ku dhaynayo oo aamin Chelsea daarto istaraakara badan la xiriirinayo iska aamin maanta laakiin waxa qaadanay gool muhiim must win game ahead Nicky Enzo Fernandez ahana laba kulan xiriir oo uu sameeyo assistant waraanka lama buubuunayo ka war marka ka jirto bas aan leeyahay ninka everywhere maanta wuxuu sameeyay baaskiisii labaad uu sameeyay gool on Nicholas Jackson laakiin waa jabnay striker meesha ma jiro Nicky striker noo ahaa waxa ugu dambeysay gool u dhaliyo 2024 shay laatana la maraa saamana qabato anaga Chelsea aan nahay fikirkaada ka dhiibo kulamadan shubka ayaa noo dhiman 5 kulan oo hadda kadib waxa dhiman kala baxnaa fiiri waa Newcastle Nottingham Forest Man United iyo Liverpool waa shub waa dhaafeen Chelsea xil ciyaareedka soo socda Champions League ba qayb gali kartaa maantay Forest of East waxa ahayd secure Nottingham Forest kun la u dhiman waxba igama gelnaane waa shaqaystay Forest waa ku fadhinaa xil ciyaareedka soo socda Champions League ma qayb gali karnaa qaybta hoose nala wadaag fikirkaada ka baxso kulamadan aan u jeedinay waa 4 kulan imise dhibcood Chelsea heli kartaa inta soo kusoo gabagabeena maanta ani xamaasadeeda zaid waaye mar labaad waxaan ka codsanaa adoo muuqaalku soo gaaro si share garay oo saaxiibada la wadaag haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir asxaabta ku xiran page-kayga si aad u heshid ciyaarihii ugu dambeeyay oo update ah waxaa idin leeyahay maalinta idin wacnaato habeenka idin wacnaado sidaas iyo nabadey